bismillaahi raxmaani raxiim. kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta qiimaha badan meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada qormo xiiso loo ka hadlaysa ciyaaraha bilowga wiigan la ciyaaray oo ahaa ciyaaro xiiso iyo xamaasad badan oo dhacay maalintii Sabtidii iyo Axaddii. kulanka ugu weyn waxa uu ahaa kii dhexmaray kooxaha Liverpool iyo Manchester City maalintii Axaddii. haddaba kusoo dhawaada kulamada dhacay Sabtidii iyo Axaddii. ciyaarta koowaad maalintii Sabtidii kulan xiiso lahaa oo dhexmaray kooxaha reer London West Ham iyo Arsenal ayaa guriga West Ham ku dhexmaray. kooxda martida ahayd ee Arsenal ayaa dardar ku soo gashay kulankan, isla markaana haafkii horeba ka dhalisay 4 gool, sidoo kalena 4 gool u kala dhaliyeen Gabriel Magalhaes oo madax ku dhaliyay kubad koorna ahayd oo soo qaaday Bukayo Saka. goolka labaad oo si farshaxanimo iyo xirfad ku jirto uga soo wada shaqeeyeen Saka iyo Odegaard oo uu dhaliyay Leandro Trossard, halka goolka saddexaad uu ahaa gool kulaad uu dhaliyay kabtanka kooxda Arsenal Martin Odegaard, halka uu goolka afraad oo caawinteeda lahaa Leandro Trossard oo aad u qurux badnaa uu dhaliyay Kai Havertz. ciyaartana uu ka dhigay 4 gool iyo eber haafkii hore. West Ham oo aan isdhiibin ayaa gool rajo soo celina uu dhaliyay Aaron Wan-Bissaka, ciyaartana uu ka dhigay 4 gool iyo 1 gool. isla dhamaadka haafkii hore ayaa uu Bilofisiyon u dhaliyay Emerson gool aad qurux badnaa, ciyaartana uu ka dhigay 4 gool iyo 2 gool. markii haafkii dambe la isku soo noqday ayaa kooxda Arsenal heshay gool kulaad kubad khalad ah oo Gabriel uu ka galay goolhayaha West Ham Fabianski oo uu dhaliyay Bukayo Saka. ciyaartuna waxay ku dhamaatay 5 gool iyo 2 gool ay kooxda Arsenal ku badisay. ciyaarta kale aadka u xisaab badnayd toddobaadkan waxay ahayd tii dhexmartay kooxaha Liverpool iyo Manchester City. kooxda Manchester City oo ku jirta baryahan xaalad xun. haafkii hore ayaa kooxda Liverpool inta badan xagga kubadda kaga fiicnayd City. kooxda Liverpool ayaa gool heshay waxaana uu dhaliyay laacibka reer Holland ee Gakpo oo uu ka caawiyay Mohamed Salah, halka haafkii dambe gool kulaad uu dhaliyay kooxda Liverpool Mohamed Salah. ciyaartana uu ku soo dhamaatay 2 gool iyo eber kooxda Liverpool ay ku badisay. kooxaha Chelsea iyo Aston Villa kulan dhexmaray kooxda Chelsea ku badisay 3 gool iyo eber. 3 gool ay u kala dhaliyeen Nicolas Jackson, Enzo Fernandez iyo Cole Palmer ayay ciyaartaasi ku dhamaatay. ciyaarta kale xiiso lahayd waa tii dhexmartay kooxaha Manchester United iyo kooxda Everton. ciyaartan oo marti loo ahaa kooxda Red Devils ama Manchester United ayaa uga awood sheegatay kooxda Everton 4 gool iyo eber. goolasha u kala dhaliyeen kooxda Manchester United 2 gool uu dhaliyay Marcus Rashford iyo 2 gool uu dhaliyay Joshua Zirkzee ayay ku dhamaatay. haddaba halkan waxaan ku soo gudbin doonaa barnaamijyo kala duwan oo ay ka mid yihiin ciyaaraha wiig kasta.